halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efamiyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin axad ah bisha May ay tahay 9 sanadku waa 2021 barnaamijkuna waa dunida maanta qodobada aanu maalinkan maanta idinku haynana waxaa kamid ah waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u xaqiijiyo in aan wax ka soo cusboonaaday aanu jirin kiiskii badda oo aan ka ahayn kiiskan baddu inuu ku jiro maxkamad go'aanka ugu dambeeyana ay leedahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Soomaaliya waxa kama jiraan ku tilmaantay in kiiskii badda ee kala dhaxeeyay Kenya ay wada hadal kala galayaan Kenya qaar kamid ah dadka ku hareeraysan wabiga Shabeelle oo ka warwarsan in mar kale wabiga ku soo fato meeshii naga fatahayeen waa isxirnay waxaan ka soo bilaabnay meel leeyahay mareerey waxaan ku keenay meesha leeyahay Buulshiikh intaan 18 kilomitir waa 18 kilomitir biyaa ka xirnay Sadiiqan oo mar kale ku guuleystay maayirnimadii magaalada London hay'adda naasoo Shiinaha ku eedeysay mas'uuliyad darriyada dacaayad dhanka gantaalkii ka habaabayba iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihina kamid yihiin waa barnaamij soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan anigoo Cabdiraxmaan Cali Nabiil inaan la socodsiinayo ee akhyaaray galab wanaagsan balse marka hore aynu ku horeyno wararka caalamka Axmed Mursal oo diyaar inoo leeyahay Axmed mahadsanid Dimbil aaska iyo tacsida 10 gabdhood oo da'yar ah oo lagu dilay weerar bambaano oo iskuulkii ay dhiganayeen ka dhacay ayaa ka bilowday caasimadda Afghanistan ee Kabul sawirro la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qoysas murugaysan oo barooranaya oo dhinac taagan qubuuraha caruurtooda oo lagu aasay meel aan sidaas uga fogeyn magaalada dad ka badan 50 qof ayaa ku dhintay qaraxyo la beegsaday iskuul ay markaasi gabdhuhu dhigtaan markaas oo ardaydu ay banaanka uga soo baxeen dugsiga qalalaasahaas ayaa waxa cambaareeyay dawlado badan oo caalamka ah dadka dhintay ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Hazara oo ah bulsho Shiica ah oo laga tira badan yahay waxaana bulshadaasi si joogto ah u bartilmaameedsanayay waayadii dambe ururka la baxay dawladda Islaamka madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa kala diray baarlamaanka dalkaas arintaas oo dhabaha u xareysa in xildhibaano cusub laga soo magacaabo dhinacyada mucaaradka ah ee ku lugta lahaa dagaalkii sokeeye ee 5 sano ee la soo dhaafay dalkaasi ka taagnaa heshiis nabadeed oo la saxiixay sanadkii 2018 ayaa lagu heshiiyay in ku dhawaad 3 meelood meel xubnaha baarlamaanka ay ka yimaadaan xisbiga Riek Machar oo ah ninka ay sida weyn isu hayaan Salva Kiir aqlabiyadda xildhibaanada oo gaaraysa 550 xildhibaan ayaa waxa yeelan doona xisbiga talada haya ee SPLM dawlad loo dhan yahay ayaa muddo sanad ah dalkaasi ka jirta walow isku dhacyo dhanka qabaa'ilka ay keeneen in qaramada midoobay ay ka digto khatarta ah in dalku uu colaad sakeeyo oo sal balaaran u dib ugu laabto mas'uuliyiinta caasimadda Hindiya ee Delhi ayaa ku dhawaaqay in toddobaad afraad ay ku darayaan bandowga saaran magaaladaas ee fayraska corona awgiis loogu soo rogay ayadoo dalkaasi wali ka taagan markaasi uu ka taagan yahay ama dagaal ugu jiro kiisas cusub oo fayraska corona madaxa golaha wasiirada ee Delhi ayaa sheegay in xayiraadaha la soo xoojin doono iyadoo la mamnuucay xafladaha aroosyada maanta oo xad ah kiisaska cusub ee maalinlaha ayaa sare u dhaafay 400 oo kun halka dad 4,000 oo qofna ay ku dhinteen maalmihii la soo dhaafayna dhowr gobol oo koonfurta dalkaasi ku yaal ayaa soo rogay xayiraado ayaga gooni u ah kadib markii xanuunku si lama filaan ah uu sare ugu kacay ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku gacan sayray cadaadis caalami ah oo ku aadan in aan la dhisin magaalada Qudus halkaas oo uu ka taagan yahay qalalaase ka dhashay howlgallo la doonayo in dhulka looga raro Falastiiniyiinta dhulkaas oo ay sheeganayaan Yuhuudda halkaasi deegaamaysanaysa rabshado ayaa ka dhacay 2 habeen oo isku xiga agagaarka masaajidka Al-Aqsa iyo magaalada qadiimka ee Qudus boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay isku dhacyo dhexmaray booliiska Israa'iil iyo dibadbaxayaasha Mr. Netanyahu ayaa sheegay in aan u dulqaadan doonin hanjabaadaha lidka ku ah nabadda ee ka imaanaya waxa uu ku tilmaamay xisbi xag jir ah waxaana jiray baaqi caalami ah oo ku aadan in xaaladda la dejiyo iyadoo baadariga weyn ee Bob Francisna uu ka digay in rabshadaha halkaasi ka taagan ay rabshado kala dhalaan warkiina waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay Axmed Mursal Xuseen oo inala socodsiinayay wararka caalamka ee dhageystayaal u diyaar garooba idaacadeena dunida maanta oo faahfaahsan. aynu ku bilowna dawladda Soomaaliya ayaa beenisay in gorgortan ay ka gashay arinta muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya sidaasna lagu soo celiyay xiriirkii labada wadan. qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay waxay ku tilmaameen shaki ay ka qabaan soo celinta xiriirka labada dal oo ay toddobaadkii hore shaacisay dawladda federaalku. Cismaan Abubakar Dube waa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya waxaan ka wareystay bal waxa ay uga jawaabayaan iyo waxa ka jira arintaas. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan aan u xaqiijiyo in aan wax ka soo cusboonaaday aanu jirin kiiskii badda oo aan ka ahayn kiiskan baddu inuu ku jiro maxkamad ilaa 6 sanadoodna uu soo socday haddana uu gabagabadiisii marayo go'aanka ugu dambeeyana ay leedahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxaanu filaynaa go'aanku inuu soo bixi doono bisha 6 ilaa bisha 9 inta u dhaxaysa waana go'aan maxkamadeed ilaahay baa og soo noqon doono laakiin niyad sami badan ayaanu ku qabnaa insha Allah ducadii dadka Soomaaliyeedna waa ku kalsoonahay. siyaasiyiin mucaarada iyo aqoon-yahano kaleba waxay idinku eedeynayaan oo ay shaki ka muujinayaan in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya la soo celiyay ay wax kale ku waslaaban yihiin oo gaar ahaan kiiskii badda la filayo in wada hadal dibadeed lagu dhameeyo oo maxkamadda laga soo saaro. arrintan waxa la xukuma jiraan dalka waxa dawladda federaalka Soomaaliya iyagaanay dadku kalsoonideeda siiyeen waxaan u cadeynaynaa shacabka Soomaaliyeed in aanay wax ka jirin kiiskaasina uu yahay go'aan maxkamadeed soo bixi doono insha Allah hadii ay ka dhigo wax walba waa la isku dayay oo lagu xagalka daaqinayo kiiska laakiin adkaysiga iyo dhabaradayga iyo samirka iyo qiimaha wadaniyadeed ayaa wuxuu keenay in la jixin waayo go'aanka lagu simo go'aan maxkamadeed inuu noqdo. qadar oo idin dhexdhexaadinaysay waxaa lagu tilmaamaa mid kamid ah wadamada shidaalka ee ka ganacsada isla mar ahaantaana dana kale arinta badda marka taa lafteedu soo tuun dhalin mayso in qadar idinka Kenya isku soo dhaweyso. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waa kii xumaaday xumaanshuhuna wuxuu ka yimi faragelintii aanu tirsanay iyo maleeshiyaadkii ka imaanaya xagga Kenya la soo abaabulayay faragelintaas oo aanu diidnay bay ka timi waa tii nabad u dhacday waa tii ciidamadii ay nabad qaateen arrintaas waa tii dhamaatay intaa wixii ka dambeeyay waxaanu mar walba Soomaaliya ka shaqeynaysay wanaagga iyo darisnimada iyo xasiloonida haddana xiriirkii wuxuu marayaa bilow fiican in kalsooni la dhiso dadna guddi baa la sameyn doonaa guddidaas waxay ka shaqeyn doontaa isu soo dhawaashaha labada dal arrimahaasi marna xiriir lama laha arrimaha badda taasaan rabaa inaan bayaamiyo. qadar waxay ku jirtaa wadamada ku caanka ka ganacsiga shidaalka iyo gaaska ee baddan Soomaaliya iyo Kenya isku haystaana waxaa la filayaa in halkaas uu shidaal ku jiro marka ma hawlahaas qadar ku qasbay in idin dhexdhexaadiso waxa jira dano ay ka leedahay. qadar waa wadan muslima oo walaal ah oo carbeed oo intaas oo urur aan ku wada jirno kabacdi markaa waxaan isleeyahay wanaag bay ka shaqeynayeen laakiin mudane qadar waa meel aad uga fog meesha hawshu ka dhacayso oo cidda hawshan khusaysa waa Kenya iyo Soomaaliya oo darisa dadku wax falanqeeyana waxay sheegayaan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya xumaada in qadar sidoo uu saameynaya iska yartahay marka maxaa qadar ku qasbaya in ay dhexdhexaadiso idinka iyo Kenya ee halkaas ku jira sida ay sheegeen madaxdoodu labada wadanba waa la saaxiib waxaanay caan ku tahay qadar dhexdhexaadinta iyo isu soo dhaweynta qadar oo kaliya ma aha shucuubo badan iyo dad badan oo Soomaaliya la saaxiiba ayaa iyaga laftoodu qayb ka ahaa isu soo dhawaantan waana uga mahadcelinay qadarna waa uga mahadcelinayna runtiina ma arko interest ku jira oo aan ka ahayn waxaan afka qalaad lagu yiraahdo in good faith niyad samidaas baynu hawsha ay ku socotaa waxaanan islaahay waxay mudan yihiin amaan iyo wanaag waana runtii wayna tahayba dadka wanaagga ka shaqeeyeen lagu mahadceliyo waana bogaadinayna cid kasta waana ku sheego kaligood ma aha intii cilaaqaad ku xumaaday oo dalal badan ayaa waxay ku dadaalayeen isu soo dhawaashaha laakiin walaalaha qadar aad bay u dadaaleen iyagu wayna runtii mudan yihiin. maxaa ka jira wararka sheegayeen madaxweynuhu qadar u socday halka ku kulmi doonaan dhigiisa Kenya runtii arrintaasi wax ka jira ma jiraan madaxweynayaashu way is arki karaan waana is arki jireen waana is arki doonaan laakiin ma jiro hadda inay sarkayaan inay qadar isku arkayaan inay 12 bisha is arkayaan waxaas oo dhan waa propaganda ay fidinayaan dad shisheeye ah oo raba inay xasaasiyad ka dhaxabuuraan cilaaqaadkan bilowga ah ee cusub
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abubakar Dube oo ka hadlayay waxa ka jira inay kulmayaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale warka ah ee maamaha la isla dhexmarayay ee in Soomaaliya ay heshiiskii ay ku hooslaaban yihiin xidhiidhka ay soo celiyeen ee Kenya iyo Soomaaliya in Soomaaliya ay qorsheynayso in labada dhinac waa Kenya iyo Soomaaliya ay meel ka baxsan maxkamadda kaga wada hadlaan kiiskii badda oo muddooyinkii u dambeeyay maxkamadda ICJ yaalay lana filayo dhawaan in lagu dhawaaqo xukunka kama dambaysta madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa kala diray baarlamaankii dalkaas taasoo dhabaha u xaadaysa magacaabista xildhibaano ka soo jeeda dhinacyada iska soo horjeeda ee dagaalka sokeeye 5 sano ka socday wadankaas waa tallaabadii ugu dambeysay ee hirgelinta heshiis nabadeed oo la saxeexay sanadkii 2018 dowlad midnimo ayaa la dhisayay muddo sanad ka badan laakiin kadib markii uu qarxay dagaalo fara badan oo u dhaxeeyay qowmiyadaha UN-ka waxa ay ka digeen halista dib ugu laabashada taas oo ay ku taliyeen in xaalka lagu soo dabaalo in dhinacyada ay khusaysaa ay dhaliyaan dowlad loo dhan yahay haddaba Wilros ayaa ka soo diray warbixintan ku saabsan koonfurta Suudaan xarunta BBC waxa soo jeedinaya Xasan Sheekh Umar siyaasiyiinta koonfurta Suudaan ayaa si tartiib ah u fulinaya ballanqaadyo qayb ka ahaa heshiis nabadeed oo horey ay u wada gaareen haatan waxaa la kala diray baarlamaankii tallaabada xigtana waxay noqon doontaa soo magacaabista 550 mudane lama soo dooran doono xubnahan laakiin waxaa bedelkeeda soo magacaabi doona xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan inta badanna waxay ka imaan doonaan xisbiga SPLM ee madaxweyne Salva Kiir iyadoo ku dhawaad 4 meelood meel ka mid ah xubnaha baarlamaanku ay sidoo kale ka imaan doonaan xisbiga hogaamiyihii hore ee mucaaradka Riek Machar wali waxaa jira caqabado waaweyn oo hor yaala koonfurta Suudaan oo ay ka mid tahay samaynta ciidan qaran oo cusub oo ka kooban ciidamo ka socda dhinacyada ka soo horjeeda dagaalka sokeeye ee dalka koonfurta Suudaan dhibaatada badan gaarsiiyay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatana waxaa jira walaaca in webiga Shabeelle uu si weyn ugu soo fataho deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellooyinka dadka deegaanadaas ayaa bilaabay inay carruur ka sameeyaan meelaha is leeyihiin uu ku fatihi kara webiga haddaba dad iskood su xilqaamay ayaa tuulooyin hoostaga degmada Balcad waxay ka bilaabeen hawlo ay uga gaashaamanayaan fatahaada webiga Ali Barsan Jihuud oo ah nabadoonka deegaanadaas ayaa ii warramay isagoo ku sugan tuulada Mukay Dheere oo ka tirsan degmada Balcad afar fasal tuulada biyo ku soo noqnoqahay dib badanaa la maray maanta anuunka habdiin tuulada nahay waa ka fadhiisanay waxaan yidhi dhibkaan ugu soo noqnoqahayo seen ka dhahnaay bacdama meel haddaan beriga nalaga soo gurmaday nalaga kaalmeeyey aysan jirin waxaan u surali daranay inaan ununka biyihii wax ka qabanno iska xirno hal nin oo muslimiinta ka mid oo walaalaha ka mid ayaa walax yaroo kaalmaa ka helnay inta kale ununka ka tuulo ahaan ununkaa isu xil saarnay 3 baldoos ayaan keenay 600 oo saacadood oo 12 saacad ka dhiman tahay ayay baldoostii noo qaadatay kharashkii baldooska ilaa hadda waanoo lagu leeyahay waxaan bixinay shidaalkii iyo oolyadii iyo joornaatigii aan dhiibnay wixii kaloo kharash ahayo baldoosleydii al'aana waanu leedahay dhibkaasaan marnay unukana saasaan wax yeelnay markaa bal ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay biyihii meeshii naaga soo fatahaayeen waa iska xirnay waxaan ka soo bilaabnay meelaha la leeyahay mareerey waxaan ku keenay meesha la leeyahay Buulashiikh intaan 18 kilomitir waayo 18 kilomitir aan biyaha ka xirnay marka biyaha aad xidheen ma isku haleynaysaan in ay idinka ilaalinayaan biyihii mise wax ku meel gaar aad isleedihiin oo inta hore roobku bilowga yahay ha idinka ilaaliyo maya alxamdulillah ilaahay xaqiisa hada wax jira ma sheegi karin la kalsooni iyo rajo waxaan qabnaay in biyihii oo dhibkoodii kacaynayeen rajo qabnaay sida u buurnay laakiin soo waagii horeba sidan oo kale ma aydan samayn jirin oo biyaha sidan oo kale iskama aydan moosi jirin maya hal mar waa di soo baxeen waa ceynaysiinaan dhehayni fasalka kale haddii noogu ceean gu iyo deer 4 roob oo kale markaas ay waqti aad xilqaamayno ka hor waxa xilqaamayno jirin marka bal markaanu dib u eegno khasaarihii ay biyaha sidin geysan jireen khasaare intee leeg baa kala kulmi jirteen khasaarada oo hadda biyaha noo geysteen wax la soo koobi karaba ma aha 6 roob
ay beerahayna biyo ku jiraan horta waxaana naga go-ay diir galley sisin bocor yaanyo liimo cambo geedoon oo nuucsada haba yaraatee ma leh marka iska moosidan aad doorkan samayseen waa ku qanacsantihiin soo ma aha inaydaan hadhow idinkoo biyihiidin qaadeen oo dhawaaqi doonaan la maqli doonin waa ina biyahaasay mar damba nuu soo noqeynaa ku rajo weegnahay waxaana rabnaa muslimiinta walaalaha cidda haddaan beriga dhibkaas lacagta baldoostaanu ugu leeyahay wax naga qaban karto naga kaalmay karto ina laga kaalmeeyo lacagta baldoostaanu lagu leeyahay lacagta baldoosta bal dadka ku dhagaysanaya ee aan fahmayn deegaankiina iyo inta webigu idiin jiro bal sawir guud ka sii intee webigu idiin jira iyo qaabkee xaalkiinu yahay deegaankayna hadda waxaan fuulnahay meel buur oo sida haddii beledki naga go-ay oo guryihii bii naga bis waayo meesha haddii labadii fasalo hore waa ciimeysa in fasalo kale noogu noqotay aan ka soo qaxnay meel taag oo fid oo doom aan nahay webiga hadda aan degannahay waxaa noo jira hal kili bar kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka Mukay Dheere oo ka hadlayay xaalka ay ku sugan yihiin iyagoo ka baqsan fatahaada webiga isla wararka roobka ayaynu ku jirnaa waxaa lagu soo waramayaa in fatahaado ay ka dhaceen deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay jareen buundo iyo wadooyin muhiim ah sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha Maxamed Ibrahim Ruush oo ku sugan Jigjiga iyadoo roob mihigaan ay ka daayeen maalmihaynu soo dhaafnay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay dowladdeegaanka Soomaalida iyo dhulka sare ee ku yaala dalkan Itoobiya ayaa waxaa si weyn isku soo taraya khasaaraha roobkaasi ay ka geysteen qaybo ka tirsan deegaanka Soomaalida kadib markii roobkaasi fatahaado ay ka sameeyeen meelo badan oo ka tirsan deegaanka Soomaalida taasoo haatan meelaha roobkaasi mihigaanka khasaaraha ay ka geysteen ay ugu dambeysay go'itaanka buunta ku taala duleedka tuulada Laab oo ka tirsan degmada Beercaan ee gobolka Shabeelle deegaanka Soomaalida toatan la sheegayo in gabahanba buuntadaasi uu la tagay daadka kaasoo keentay in bahakada uu galay isku socodka dadka qaar ka mid ah waxqarad ku dhaqan tuulada Laab ee degmadaasi Beercaan oo la hadlay BBC-da ayaa tilmaamay ahmiyadda wadadaasi ay lahayd waxaana buundadani Laab iyadoo isku xidhaysay magaalooyinka guday iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolkaasi Shabeelle ay ahayd marin aad u muhiim ah marka la eego dhinaca baayaca mushtariga dhinaca kale wararka imaanaya magaalada Qabri Dahar ee xarunta gobolkaasi Qoraxay ee deegaanka ayaa sheegaya in sidoo kale ay go'day buunda muhiim ah iyadoo isku xidhaysay magaaladaasi Qabri Dahar iyo degmada Shilaabo ee gobolkaasi arrintaas oo keentay in gebi ahaanba hakadu ku yimaado isku socodka dhinaca baayaca mushtariga iyo dadka gobolkaasi arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii aynu soo dhaafnay ay soo baxayeen digniino ka imanayay xafiiska ka hortagga masiibooyinka ee dowladdeegaanka Soomaalida halkaas oo saraakiisha xafiiskaasi ay si weyn uga digeen suurtagalnimada in roob mihigaan ay ku dhuftaan qaybo ka tirsan degmooyinka deegaanka Sadiq Khan oo ka tirsan xisbiga Labour-ka ayaa markii labaad ku guuleystay maayirka magaalada London isagoo ka adkaaday Sean Bailey oo ah muxaafadkii la tartamayay wuxuu ku guuleystay tiro gaadhaysa 55% codadkii shacabka kadib markii la isla gaaray wareegii labaad tii hore markii lagu kala bixi waayay xildhibaankan hore ayaa hore u noqday maayirkii u horeeyay ee muslim ah ee magaalo weyn oo Yurub madax ka noqda kadib markii jagadaas uu markii u horeysay qabtay 2016 Maxamed Ibrahim Hereri waa falanqeeyo ku nool Ingiriiska waxaan ka wareystay Balguusha Khan iyo waxa ay ka dhigan tahay Sadiq Khan waxa uu ku guuleystay doorashadii mar labaad doorashadii mayorka London markii ugu horeysay xilka qabtay waxay ahayd 2016 imikana wuxuu ku guuleystay wareegii labaad ee doorashada waxaanu helay 55% ninkii isaga la tartamayay madoobaaya Sean Bailey loo oranayna wuxuu helay 44% marka aynu ku horeyno ninka la tartamayay ee loolanka adag la galay ee Sean Bailey bal maxaynu ka naqaan ugu horeyn ninkaas Sean Bailey waa nin madow waa nin reer London ah muddo ayuu tartamayay kursiga uu tartamayay mayornimada ee Sadiq Khan run ahaantii xisbigiisu may gelin in dadaal weyn markii uu Sean Bailey ismuujiyay tiriskii hore oo kale nambar wanaagsan buu keenay xisbiguna waxaad moodaysaa inay isku canaananayeen in aanay taageero hagaagsan siinin oo aanay si garab weyn u istaagin maadaama ay filayeen inuu Sadiq Khan ku guuleysanayo mayornimadoona kursigu qatar ku jirin in Sadiq Khan markale guuleysto oo mayornimadii London ku guuleysto xisbigiisii gaar ahaan xisbigii Labour-ka bal iyaga laftooda arrintaas maxay uga dhigan tahay ka xisbi ahaan
xisbiga Labour-ka doorashooyinkii meelo fara badan waxa ka soo gaadhay jab gobolada waqooyiga Ingiriiska oo xisbiga lagana soo aasaasay guulo wanaagsan ka keeni jireen jab baa gaadhay waxa cajiib ahayd oo kale gobol la yiraahdo Tees Valley oo waqooyiga Ingiriiska ku yaala mayorkii Conservative-ku wuxuu keenay 73% oo ahayd numberkii cid abid lagu doorto ee ugu sareeyay taasina culays weyn bay ku keentay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee Keir Starmer guul daradana waxa ugu wacneed meelaha awood la saarayay isha waqooyiga England iyo jabka soo gaadhay ayaa ugu badnayd marka London iyo Manchester iyo Wales waxa ay meelaha kooban xisbiga shaqaaluhu guusha ka keenay ee ay tirsanayeen ayuu leeyahay laakiin inta kale jab badan baa ka soo gaadhay sida aad sheegtay xisbiga Conservative-ku meelo badan oo dalka kamid ah ayuu ku gacan sareeyay oo uu maamulkeeda ku guuleystay laakiin dhanka kale in caasimadii London ahayd lagaga guuleysto markii labaad bal ka xisbi ahaan taa lafteedu maxay uga dhigan tahay markii horeba Conservative-ku inkastoo ra'iisul wasaaraha imika Boris Johnson uu isagu mayor laba goor ka soo noqday caasimadda London haddana imika Conservative-ku may haweysanayn wax London waxay u arkaan magaalo Labour oo kale waxa kaloo jirta wax la yiraahdo imika dagaal dhaqameed ama culture wars baa jira la yiraahdo oo qof kastaaba ciduu yahay uu codka siiyo marka madowga ama muslimka ay madowga muslimka codka siinayaan cadaanka ay cadaanka siinayaan oo qof kastaba ay ku kooban tahay maxaad tahay su'aashu aanay ahayn maxaad qaban karaysaa marka taasina way jirtay laakiin Conservative-ku markii horeba London may haweysanayn oo ismay lahayn waa helaysan mayornimada caasimadda muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay markaynu eegno meelaha qaar sida baraha bulshada oo kale warbaahinta qaar oo kale in Sadiq Khan si loo dhaleecaynayay in mar kale uu London ku guuleystay bal adiga dhankaaga maxay kula tahay way fududeysay guushaas markii koowaad doorashada helay 2016 kabada wuxuu noqday mayorkii ugu horeeyay ee Muslim ee caasimada European madax ka noqday imikada laftigeeda Chinese-kiisu waa fiicnaayo dalaysma lahayn tagada waa waayaya laakiin se waxa jira waxyaabo lagaga cabanayay waxa jira dhinaca gaadiidka oo kale sidoo uu maamuray company-ga la yiraahdo Transport for London ee gaadiidka oo kale ka shaqeeya ayaa jira sidoo u maamulay oo kala maartay cabasha ay ka jirtay laakiin se haddana taasi waxay muujisay in London ay tahay magaalo Labour ayaa loo arkaa inkastoo ra'iisul wasaaraha imika haya laba goor uu ka soo noqday caasimadda intaanu kala wareegin Sadiq Khan 2016 kala wareegin qabashadeeda aduu Charles buu jirin magaranaysa inuu jagada waayay laakiin se waa la gilgilay taasina waxay muujinaysaa inaanu markii ugu horeysay doorashada ku guuleysaneen ay noqoto doorashadu in mar labaad la galo wareeg labaad ama dib loo tiriyo aad buu mahadsan Maxamed Hareeri oo ii warramayay goor sii horeysay hay'adda maamusha hawada sare ee Mareykanka NASA ayaa dhaleecaysay Shiinaha isla markaana sheegtay inuu xakameyn waayay mid ka mid ah gantaaladiisa qaada dayax gacmeedkooda si aan la filayn ugu soo laabtay dhulka kadib markii uu ku dhacay badweynta Hindiya hay'adda NASA waxay sheegtay in Shiinuhu ku guuldareystay inuu raaco mas'uuliyadda inuu qaado tallaabo ka hor intaan gantaalkaasi ka baxsan Shiinaha ayaa door biday in gantaalku si iskiisa u soo laabto inkastoo aysan xakameyn karin Shiinuhu waxa uu arrintaas ay tahay mid caadi ah balse dalalka kale ayaa qaba in gantaalada hawada sare loo diro loo soo dejiyo si xakamaysan oo sababaysa inay ka badbaadaan dadka ku sugan dhulku balse Shiinaha ayaa qiray in gantaalkan oo dhulka ku soo wajahnaa uu burburkiisu ku soo dhacay badweynta Hindiya meel u dhow jasiiradda Maldives Muawiye Maxamed Buraale ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maalmihii la soo dhaafay waxaa la saddex marayay halka ay suuragalka tahay inuu ku dhaco gantaalka iyadoo khubarada Mareykanka ay ka digayeen inuu horseedi karo khasaaro ballaaran balse Shiinaha ayaa ku doodayay in khatarta ka dhalan karta dhicitaanka gantaalka ay tahay mid aad u kooban xukuumadda Shiinaha ayaa sheegtay in gantaalka oo xajmigiisu yahay 18 tan uu ku dhacay badweynta Hindiya meel waqooyiga u beegan dalka Maldives Mareykanka ayaanan xaqiijin warkaasi ay sheegtay xukuumadda Shiinaha hase yeeshee shirkadda SpaceTrack ee ka warranta dayax gacmeedka ayaa sheegtay in markii uu dambeysay uu ku wajahnaa Sacuudi Arabiya gantaalka lagu magacaabo Long March 5B ayaa la sheegay inuu ka qayb ahaa saldhigga cusub ee uu dhawaan Shiinaha ka hirgeliyay hawada sare khubaro kala duwan ayaa saadaaliyay in inta badan qaybaha gantaalka ay ku baabi'i doonaan hawada sare inkastoo biraha aadka u adag ay ku soo dhici karaan dhulka Shiinaha ayaa iska diiday dhaleecaynta ah inuu si mas'uuliyad xumo ah u soo daayay gantaalkaasi weyn warbaahinta Shiinaha ayaa ku tilmaantay hadallada reer galbeedka kuwa xaalad abuur ah oo lagu magacdilayo xukuumadda Beijing aad buu mahadsan yahay Muawiye Maxamed Buraale warbixintaasina la socodsiinayay maalmihii ugu dambeeyay Ramadaanta ayaa lagu guda jiraa iyadoo meelo badan oo bariga Afrika ay Soomaalidu isu diyaarinayaan munaasabadda Ciidul Fidriga haddaba waa sidee ganacsiga xaafadda Islii xilligan Axmed Mursal Xuseen ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha suuqa Islii ee isu diyaarinaya ciida
magaca waxaa la axmed qaasiire ciidan iyo ciidii hore isku mid maahan because ciidii hore iyo ciidan ay kala duwan tahay ciidii hore lockdown baa jiray oo badan dad waxay ka fikirayeen ilmaha haddaad dar u gadaan intay ku eedsiinaysaan intay wadaysaan ay ka fikirayeen laakiin ciidan waxaa u maraysaa in meelihii lagu ciidi jiray ama lagu damashaasi ay furan sidaas awgeed dadka fiican ku gadanayaan ciida marka sidee yahay suuqa iyo dhaqdhaqaaqa dadka marka loo barbardhigo ciidii hore walaa dabcan markii hore dadku way ka cabsadeen dharkii ciida badan ay keeni jireen maadaama lockdown ay wax jireen way ka cabsadeen laakiin hadda markii dib loo furay oo lockdownkii la qaaday ay dadku rabitaanka dharka la rabay ciida ay aad u soo bateen marka si fiican baa loo gadanaya aad si fiican wallaahi midii hore way noqon roontaani oo si hadda u fiirino dadka ku imaanaya ka harqaan la'aan oo wax ka tolanaya ka waran wallaahi niyo waa sanadkii hore iyo niyo difference weyn u dhaxeeyo xagga diyaar garowga haye dad badan baa ku imaanaya maasha Allah sida hore sida weedhan haye dar baa tolanaysa soo maaha magacaaga igu bilow magaca waxaa la yiraahdaa maxaadele oo maxamed maxamed nuur ciidan diyaar garowgeedu waxyaalo fara badan baa ka hadlaysan maxaa dhacay magaalaan corona haye waxa macnaha jira oo sanadkan jira waxa weeye wax laga sheekan kara maaha tan iyo midii hore markaad soo bardhigtid ciidan iyo ciidii hore farqo weyn u dhaxeeyo haye tii hore dadka dhaqaalo haystay ani markaas ka soo qaado haye labadan macnaha waa 70% iyo 100% bay kala ahayd magacaygu waa Axmed Xuseen Ciise ka waran ciidan iyo tii hore ciidan iyo tii horena wax hadda farqi u dhaxeeyo oo saas u weyn ma jiraan maxaa yeelay labadaba waxay ka siman yihiin in macnaha labadaba lockdown la galay ama mataqaanaa bandow la galay marka hadda wax saas ay noo kala duwan yihiin malanaga xagga dhaqdhaqaaqa suuqa ka waran dadku waxay ka iibsanayaan wallahi ma xumo ma sha Allah waa iska 50-50 aniga Faadima Aadan baa la dhahaa ciidan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin xawaa lockdown-kii baa la qaadado malays dhaqdhaqaaqa kullu anagu dhar madow baan u gadnaa dharkii ciida oo kale oo Soomaalida iyo Islaamka ma gadno aad uma gadaan marka dad badan inay yimaadaan marka dad badan oo ma soo ciidan fiican ma sha Allah sababtu waxay tahay حتى عيدان lockdown ma jiro haye diyaar garowgeeda ka waran diyaar garowgeeda aad u fiican tahay ciidii hore waxa ay lama soo tukun tobanka dambe xataa lama soo bixi karin hadda maanta waxaan arkaa in caruurtaada u adeeganaysid marka caruurta soo kaxayso maanta caruurta soo kaxeeyay ciid u gado marka ciid hore sidaan oo kale ma ahayn oo caruurta halkan lama bixi karin oo lama bixi karin oo salaad tobanka dambe xataa lama soo tukanay laakiin tan ilaahay fursad wuxuu noo siiyay inaad hajka soo tukano taraawixna soo tan marka waxa keenay dadku meel ku eedaan oo tagaan baa laga yaabaa inay helaan oo ay aadaan niyaday hayaan maadaama tobanka dambe la soo tukanayo oo taraawix la tukanayo aad buu mahadsan yahay Mursalo warbixintaasi isliin uga diyaariyay bal haatan hadii aynu eegno dhanka iyo ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ciyaarta hadda socota waxay dhex maraysaa kooxaha Manchester United iyo kooxda Aston Villa gool ay kooxda Aston Villa ku horeysay waxay kooxda Manchester United ugu bedeshay 2 taasoo ka dhigan hadii Manchester United ay badiso in Premier League ay qaaday kooxda Manchester City oo isku haleynaysa guusha United haatana barnaamijkii muujadaha baraaruga bulshoy ganacsiga xortii ragoo qulow maxilne haweenkana wuu xaalaan kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha baraaruga iyo toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah si aad mustaqbal u gaadho macna leh oo duruufuhu inta badan isbedelaya duruufaad uga baxdo inaad kayd yeelataa waa muhiim waa khabiir axmed macalin oo barnaamijka inagala qayb galaya waan kaga hadlayno haweenka ganacsiyada kala duwan ku haysta xeryaha barakacyaashu ma fahansan yihiin sida wax loo kaysado iyaga oo ku xisaabtamaya jiritaanka COVID-19 waxa kale oo aad ku maqli doontaan wararkii u dambeeyay COVID-19 iyo dhulka Soomaalidu ka degto geeska يا ولا كيد بعد يلا نسا عدنا وباهن ميسي قرأ سليق نوحو كارو كعي مالنتان كيد ياشا وفكرة في على سيدان بنكيكا كويليا dadka barakacayaasha iska abaan loo hayaa waa maadayskii taliya tacbiye jirayaashii oo maadays cusub inoo haya waxa kale oo aad maqli doontaan dhageystayaal ka qaybgalkii dhageystayaasha ee barnaamijkan wadajir waxa barnaamijkan idinku soo jeedinaya anigoo Safiya Ali Yuusuf iyo Cabdullaahi Jaamac وهاجاك عبد الله يو هدي أم بلونه برنامج كتطبعات كان سيدا أنت المعنى وحن كسو قادة دونا هوين كان جناحسية كوها يستحريها بركة عياش ومفهم سيهين سيدا وحلاك يتصدو يجو أكو حساب تمايا جريتان كوفر سجالية طبعا بلسه مركورة أنكو بلونه ورك قدام بيه كورونا فيروس يدلل كجيس كأفريقيا عبد الله جامع أيه ينادل مريضونا أنكو بلا وصفية دولة دجان كصومالي دا إثيوبيا أيه مجال تكتيكات تطبعات كان وحكا فرتين ماشين كدالية أكسجين تاسي وباهي وين لوقبي xilligan cudurka COVID-19 ay jigjiga iyo dhulka dawlad deegaanka Soomaalidu ay ka mid noqdeen meelaha uu dadka faraha baas ku hayo COVID-19 ay u soo dhacayaan dhinaca kale madaxa arrimaha degdega ah ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cumar Maxamed ayaa waxa uu sheegayaa in wiigan ugu horeeya bisha May ee aynu ku jirno aan jirin
dad tira badan oo u soo dhacay cudurka COVID-19 oo Somaliland inkastoo uu sheegay in wasaaradda iyo guud ahaan Somaliland feejignaan sare lagu jiro taasi oo ka dhalanaysa oo ururka tirada badan ee haatan ka muuqda suuqyada waaweyn iyo masaajidada salaada lagu oogo waxa kale uu sheegay in feejignaan lagaga jiro xuduudaha iyo meelaha dalka laga soo galo iyadoo laga cabsi qabo in xanuunada ka jira waddanka India oo kale oo dad badan oo reer Somaliland ay tagaan caafimaadna u tagaan in xanuunka halkaasi ka jira uu soo gaari karo Somaliland dhinaca kale agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaraddaasi caafimaadka ee Somaliland Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa waxa uu sheegay in ay howlgeliyeen wacyigeliyaal caafimaad oo tiro badan oo ay ku sii daayeen suuqyada si looga taxadiro COVID-19 iyadoo oo dadka loo sheegayo inaan la dhayarsan tallaabooyinka lagaga hortagayo COVID-19 ee ay wasaaradda caafimaadku soo saartay maalmaha ciidda dhinaca dowlad goboleedka Puntland magaalooyinka Qardho Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa la sheegayaa in hoos u dhac weyn laga dareemay dadkii uu soo ridanayay COVID-19 iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Puntland dhulka ka bilowday wacyigelin xoog leh dalka Kenya waxaa la sheegayaa Safiya in la bilaabayo iskuuladii oo dib loo furi doono waxbarashooyinkii caadiga ahaa hase ahaatee waxa warwar weyn ka soo kordhay markii uu dib u dhac ku yimid wareegii labaad ee talaalka COVID-19 oo ay ahayd in la siiyo dadka safka hore ku jira oo ay macallimiintu ka mid yihiin dib u dhacan ayaa walaac waxa uu ku abuuray in la samayn karo in iskuulada dib loo furo dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay maalintii shalay in 740 qof oo cusub laga helay cudurka COVID-19 dhimashada guud waxay ku sheegtay 740 qof tan iyo intii coronavirus jiray waxay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya sheegtay in Soomaaliya laga helay 14,415 qof oo uu soo ritay cudurka COVID-19 mahadsanid Cabdilaahi haddii aan barnaamijka qaybaha ka hadhay hore ugu sii socono Nuuro Xuseen Yuusuf waa haweeney 20kii sano ee u dambeeyay meherad ganacsi ku dhaxaysata xaafad ay danyar iyo barkacayaalba ku wada nool yihiin oo magaalada Hargeysa ku taala haweeneydan horumar ayuu ganacsigeedu sameynaya sababta waxay ku sheegaysaa in ay taqaano habka ganacsiga dhigaal loogu sameeyo Nuura waxa goobteeda ganacsiga kula kulantay wariye Muna Dhakhtar goodiyar buuha markii horeysay waxaan ku bilownay $270 oo ku furnay maantana waad arkaysaa heerku taagan yahay qol weyn baan u dhisnay imika dhinac waxa weeyaan maxay bakhaar oo raashinka lagu iibiyo oo dhameystiran dhinac waa dukaan oo alaabtiisi kala de hoos oo dhan baa taala dhinacna waa booshar iyo khudradii iyo jiirkii iyo alaabtii kala de hoos imaneysay oo dhan ayaa taala isagana maanta ma sha Allah buu ku jira alxamdulillah 20 sano oo maraya imika adigu xaafadu ku yaala waa xaafadan yara waa xaafad barakacayaal ku jiraan dan yar iyo dad saboolana u fara badan xaafadu waxa weeyaan Sheekh Nuur xaafada kale wax dhigaal ma samaysata oo faa'iidada adigto waan u sameynaa dhigaalo hadaan dhigaal aanu jirin cidba ma shaqaysan dhigaalku wuxuu ka caawinayaa markay caqabad kugu timaado dukaankii haduu isdhiniin oo kala keeno markaas oo kala dhiniin la yimaado waxa weeyaan shaqooyinkii dadku way iska yaraanayaan xaafaduna marka hore xaafada iska dan yaray haydo suuq joogo suuqa ku xiran meelo badan oo iska xirma jira maxay hayday markay xanuunadaasi dhacaan dad badan oo la soo fasaxaa jiro shaqooyinkooda ka soo dhaadhaca marka waxa weeyaan dhigaalkaasi wuxuu ka caawinayaa wixii caqabadaha dukaanka ku yimaada hadii wax deyn oo kale ka baxdo wixii waad ku soo kaabaysaa isaga markaas oo kaydkii ku yaala wixii dhigaalaha ku yaala kayd buu ku ahaa meel kuugu xiran marka dib ayaad u soo gashanaysaa dukaankii ugu soo kicinaysaa dukaankiina saas uu kuugu camirmaya marka dambe lacagta dhigaalkeed samayso halkeebaad ku kaydisaa kaad ku iibsa buu leeyahay tameheradu ay kaad kale oo siisa u shaqeeyo de lacagta maxay haydeen lagu guro marka mid ahaana kayd baad ka dhigaysaa waxaad ku guraysaa wixii aad kaydsanaysaa midna wixii de isdaba wareegay aad soo iibsanaysay baad maxay hayday ku shubaysaa akoon baan de gaadhnayna sameeyna markii dambe lacagta ugu shubno lacagtii horta agtaada haday taal iskama xakameyn karaysid marmarka qaar hadduu doonto waxbaad u baahanaysaa wixii agtaada yaala inaad qaadataa dhici karta akoonka laakiin markaad ku shubto intaad buugii qaadanayso way ka yar fogaanaysaa marka intaad buugii qaadanayso lacagtii la soo baxayso waqti bay kugu qaadanaysaa imika dawaatan la sii fududeeyba haddana adigu halkan joogo kala la soo bixi karto laakiin de waxaanu iskaga yara fogeynay marka si akoonka ay ugu jirto oo lacagta wax baahi oo degdeg ah haday ku yimaadaan aanad agtaadii ka siibin oo u qaadan kayd ay u haato meheradii marka Safiya Nuuro Xuseen way mahadsan tahay Hargeysa ayay joogtay Xabiiba Nuur waa haweeney lafteedu ku dhex ganacsata xero barakac oo ku taal magaalada Garoowe intii ay ganacsiga ku jirtay ma ay samaysan dhigaal ay ganacsigeeda ku kabto laakiin muddooyinkan dambe waxay garowsatay in ganacsiga oo meel wax loo dhiga ay tahay faa'iido weyn haddaba sida uu ganacsigeedu haatan yahay iyo waxyaabaha ay damacsan tahay waxay uga warrantay Xaawa Axmed Maxamed oo kula kulantay goobteeda ganacsiga oo ku taala xero barakac oo ah duleedka magaalada Garoowe xoolahaas hilibka iyo waxaan ka ganacsadaa qudaartaas imisan kaamkan deganay kaamkan waxaan deganahay inta uu dhisan yahay 13 sano laakiin Puntland waxaan ku noolahay alxamdulillah rabbil caalamiin 20 sano marka intaad ganacsigan haysatay halkan deganay wax kayd iyo meel ma dhigata dhigaal masaan sida coronavirus loo sheegin wax
waxba ma aan dhiganin ma ku rajaynta inaad keed dhigada had kadib wallaahi hadduu ilaahay subxaana watacaala ahay siiyo inaan keed dhigto aad iyo aada ugu rajaweynaa waxaan u xamaalayo oo aroortii 12 u kacayo ilmaheygaas yarka inaan u xamaalo oo korsado ka waran saamayntii coronavirus markuu dhacay idinku dhacday haweenka ganacsigan aad iyo aad anaa hadda ugu soo sakay wallaahi maqala badatay ayaa ugu go'on inta badan waxa jira haween ganacsiga yar haysta hagbadiyo bay ku warweegaan marka adigu hagbadiyo ma gashay si ugu celcelisay hagbad macnaha wiligeeda hal mar ayaan galay marka hagbada ku jidhay oo hagbada qaadatay maxay ku faa'iideysay waxay ii faa'iideysay ganacsigeyga xoogo ku yar camirtay ilmaheyga macnaha aan xoogo waxaan ku dhay suulixmo igu dumayo macnaha oo igu dumay oo hagaagsaday alxamdulillah rabbil caalamiin intii macnaha magaalada xirneedbo intaasaan biibiyeysanaa oo cunay aan hagbad macnaha aan ka helay macnaha isku cilcishanay miiska xunka in waa ku camirtay ilmahana suuliga waa u dhistay ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin wallahi gacmihii u dambeeyay waa wadi waa suuqa ugu xumaaday hadda hagbadii waa isxirtay waa iska deeyay ma rabtaa inuu ku noqoto aad iyo aad waa aad ba ugu damac weynahay macnaha doo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ahay wax qeyr qaba isiyo oo suuq helo aad ba ugu rajaweynahay ilaa macnaha hagbada aan si wato wax tar fiican bay leedahay marka intee kacmood ba qaadatay markii aad wax ku camirinayso hal gacan bas gacanta ugu horeysa qaatay markii coronavirus ka dhacay ma aragtay faa'iido inay leedahay in qof meel wax dhigto oo hadhow kala soo baxo ma sha Allah aad iyo aad wallahi faa'iido weyn ay leedahay aan dareemay oo yaroo haasta waa u baxsaday suuqya isxiray coronavirus waxba la sheegay waa u baxsaday laakiin hadda macnaha aan eber ahayo mabeena ahayo waxba aanan haysan ilaahay xaqiis wax aan ka sugay aad bay u mahadsan yihiin haweenkaasi ganacsiyada kala duwan ku haystay kaaman barakacayaal oo ku kala yaala Hargeysa iyo Garowe haatan aan soo dhaweyno khabiirka barnaamijka toddobaadkan waxa martay inoo ah Axmed Macalin madaxa hay'adda African Educational Trust ee Somaliland oo inta badan waxbara dadka aan hore waxbarasho u soo qaadan oo ay ku jiraan dadka danyarta ah iyo barakacayaashu Axmed Macalin soo dhawow mar kale sidee ayaa haweenka xaafadaha barakacayaasha iyo danyartu ay ku nool yihiin ay u samaysan karaan dhigaal marka ganacsi laga hadlayo waa mawduuc horta aad u muhiim ah waxaan oran karaa waa mawduucyada dhaqaalaha gundhiga ah ha ahaato heer caalami ama haat heer wadani runtiina kaydku waa qofku hantida markaa soo gasha oo qayb kamida uu dhigto mustaqbalka soo xaalada markaa ku iman doona mustaqbalka uu ka baxo tiina laba ujeedo weyn baa loo dhigtaa mid waxa weeye qofku inuu duruufta uu ku jiro iminka marka uu ka baxo duruuf adag uu galo uu kaga baxo mid waxa weeye inuu wax ku abuurto ay wax soo saar noqoto ayaa inta badan loo dhigtaa oo ugu muhiimsan dhaqanka Soomaaliya hodan buu ka ahaa oo haddaad eegto dadkii beeraleyda ahaa oo kale labada kayd bay lahaayeen kayd bay lahaayeen shinida wax la yiraahdo ay kaydsadaan oo ahaa markaa inay dhir kale ku sii beeraan iyo kayd cuntada ay haystaan ay hogeeyaan oo ku guraan bay lahaayeen inta badan waxa buddig u ahaa dumarka kaydka noocaas aan ka hadlayno kalabaad wuxuu ahaa kuwa xoolo dhaqatada ah oo ayna halkan ka soo jeedna ahayd xoolo dhaqataduna waxay lahayd dhowr nooc oo kayd waxa kamid ahaa waxaanu yiraahdo dhitada oo inta caanaha la dhigo oo la garooriyo kadibna burcad laga soo saaro burcadkan subag laga soo saaro laf dhabarta halka waday waxay ahayd haweenka oo marka dambe duruufaha adag yimaadaan ama marti culus reerka ay ku timaado ayaa laga bixi jiray waxa jira kayd kale oo ay kamid ahaayeen kumbiska iyo waxaanu nahno oodka ama muqumada la yiraahday oo ahaa dhaqanka nooca ahaa marka waxa muhiim qofku markuu wax kaydinayo dhaqaalaha soo galo saddex qaybood kala qaybiyo maxaa muhiim ku ah oo laga maarmaan ah maxaa muhiim ah oo aad ka maarmi kartaa maxaa muhiim ku ahayn marka wuxuu ahmiyada koowaad siinayaa waxa muhiimka ah ee laga maarmaanka ah hadii marka uu arko inaan waxba ka soo wax uga dhigmayaan fiican oo dhaqaalaha fiican soo haraan waxa hadana u gudbaya waxa muhiimka ah laakiin uu ka maarmi karo marka waxa wixii kaga bixi lahaa waxa laga maarmi karo oo dhan ayuu lacagtooda dhiganaya dad ma kaagto nuur hadal qayb badan bay tiri waxa jira baahiyo yar baan ugu soo baxaa fara badan marka hadii lacagtii ugu jirto mobilkay baahida yar ay ugu soo baxday degdeg ay ugu soo baxdo lacagtii baan ku noqonaya laakiin marka lacagtii iska fogeeyay waxaan eegayaa maxay kaga baxaya marka imka nuuro kale waxay faahsan tahay waqtigii inuu lacag yahay waxay banka ku tagaysaa inuu lacag yahay oo kharash yahay marka waxay soo eegaysaa kharashka in lacagta yar degdeg ay la soo baxda kaga baxaysa iyana ka maaranto runtii marka waxay istiraatiijiyad aad fiican bay ahayd in marka iska fogeyso waxaanu kula talin lahayn ilanta ka soo hadlaysay Xabiiba Nuur oo kale waxaanu kula talin lahayn inta badan binaadamku duruufta kama baxo oo duruufta iyo qofka binaadamku mar walba waa daris laakiin haddii qofku ka dhex baxay isagoo uu fakaro mar walba cid ka daran baa jirta aydi bikaan bay joogtaa meherad bay haysataa haddii hareerada eegto qaar badan ma iyagoon meherada xitaa aan haynin marka basically inaanad noloshaada ku salaynin hadba cidda ka horeysa sidii u fakarayso laakiin aad ku salaysan noloshaada iminka maxaa muhiim ah ee laga maarmaan aad bahada taa ku bees karayso haddii marka aad ku dari karto waxa muhiimka ah laakiin laga maarmi karo waa meesheeda laakiin waxa aas ku noqonaya si aad mustaqbal u gaadho macna leh oo duruufuhu inta badan isbedel duruufaad uga baxdo inaad kayd yeelataa waa muhiim aad buu u mahadsan yahay khabiirka barnaamijka ee toddobaadkan waana ku soo noqon doonaa haddii ay baydmo si uga jawaabo su'aalaha dhageystayaasha markan aan wada dhageysano fariintan caafimaad salaamu calaykum halow kabtan salaabaan idhe nabad ay covid-19 waa salaamatiin asxaabay waa hagaag waxa la gaaray waqti
wakhtigii aan farriimo dhowra akhriyi lahaa si ay dad badani uga faa'iidaystaan. marka hore waar telefoonkaygii mee mar kasta waan waayayaa waa kan waa raxma. salaamu calaykum ka tasaleebaan ayay tidhi. ninkaygu waa nin fiican keliya hal caado oo taxadar la'aan ah ayuu leeyahay. telefoonkiisa ayuu meel kasta kaga tegayaa, hadday noqoto tv-ga dushiisa, miiska jikada, suuliga, hadhowna wuu ilaabayaa. maxaa sameeya? waa hagaag raxmaay, aniguba dhibtaasi oo kale waan leeyahay, laakiin hal aragti aan ku siiyo. marka uu saygaagu raadinayo telefoonkiisa u sheeg inuu maro nadiifa iyo jeermisdile sii qaato. sidoo kale meel wal oo uu ka raadinayo ha masaxo si uu uga dilo jeermiska. waxaa laga yaabaa inuusan helin telefoonkiisa, laakiin wuxuu yarayn doonaa halista coronaviruska, sababtoo ah nadiifinta si joogto ah meelaha la taabto ama wax la saarto sida miisaska dushooda, gacanka albaabada iyo wixii lamida ayaa jeermiska coronaviruska laga yaabo inuu ku soo dhuntay boorsooyinkeenna, gacmaheenna ama xitaa telefoonadeenna. sidaa uu telefoonkaagu u limitaan batay, haddii aad xal u heshay fadlan ii soo sheeg. xusuusnow waxa uu kabtan Saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid-19. fariintan caafimaad waxay kaaga timi BBC Media Action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka Ingiriiska iyo Unilever. haddaynu intaasi dhegaystayaal ku dhaafno fariinta caafimaad, xuseen daa'uud cali waa nin ay xaaskiisu ganacsi ku dhexaysato xero barakaco ku taal magaalada Cadaado ee dowlad goboleedka Galmudug. waxa uu sheegayaa in xaaskiisa uu ku dhiirigeliyey in ganacsigeeda ay u samayso dhigaal ama kayd. sababta ku kaliftay inuu xaaskiisa arrintaasi ku dhiirigeliyo ayaa wuxuu uga warramay wariye Cabdirasaaq Cali Axmed Alcadaala oo jooga magaalada Cadaado kana tirsan warbaahinta Goobjoog. waxaa ganacsiga xaaskayga anina waan ka caawiyaa. meherada markayga waxay samaysaa meel ayaa lacagta lagu tuuraa, markii lagu tuurane meel kaloo keyd ayay wax ay dhigataa. aan kula tali haba yaraato ugu yaraan adi $1 ama $0.5 maalintii ha ahaato, taasoo loogu talagalay haddii berri wax isbedelaan ama xaaladdu si kala noqoto si loogu baxsado. tusaale, haddii maanta macaamiishu soo xaadiraan lacag ayagoon haysanin, haddii deyn la siiyo berrito booskaas macaamiishii alaabta ay qaadatay si loogu baxsado wixii shalay meel la dhigay. fikradda ah marka inaad samayso xuseenow aad xaaskaaga ku caawiso fikradda ah inay wax meel dhigtaan oo kayd loo sameeyo, adiga maxay kugula soo dhacday? maxaa kalifay? waxaa kalifay waxaa jira hal sano ah horta ma jiro wax oo suuq foorta u socdo ma jiro covid-19 awgiis. marka wixii oo caqabad noqday suuqiyo hadda aan kala soconin, dadkiioo shaqo aan haynin oo iska joogo oo meel ay u shaqo tagaan aysan jirin. fikradaas ayaa igu dhalisay inaan saas sameeyo oo berri haddii lacala wax isbedelaan ama dhib dhaco ama ganacsiga wax ogo cilad ku imaado si wixii aan ugu baxsado. fikradaas ay igu dhalisay. marka hadda maxaa isbedelay markii aad fikradan keentay oo sidii la sameeyay noo sheegtay in maalintii ugu yaraan $1 meel la dhigo? maxaa isbedelay ka hor iyo hadda? awal waxay ahayd wax isku dhex jiro oo aan kala saarnayna oo ahaa ganacsigii oo wax si toos ah meel lagu rido oo meel kale, laakiin hadda berri haddii wax dhac loo baxsanina jirtay. laakiin maanta waxaa jirta wax lagu tashto oo lagu talagaliyo meel la dhigay oo lacala berri haddii wax jiraan loo baxsan karo ama dan imaado ama duruuf kale imaado ayaa jirta. wax ballaarin ah oo kale oo kaydkaas aad dhigteen oo idinku saamaxay oo idinku soo kordhiyey ma la arkay? alxamdulilah. masalan hadda lacagtaas ayada ah oo si gaarka aan u dhignay, marba inta ka wada hadalnay waxaa dhacday in xoolo lagu soo iibiyo. xoolihiina hadda waxay gaareen ugu yaraan 10 neef oo ari ah. alxamdulilah oo dareero hadda caana laga listo, reerkii lagu maamulo, ciyaalkii caana looga listo. macnaha lacagtii kaydka hor dhigteen ayaa 10 neef oo arigana ka sii gadateen? alxamdulilah. xuseen daa'uud cali waa uu mahadsan yahay. haatan dhinaca diinta islaamka aynu eegno, waxa aynu kaga hadli doonaa sidee diinta islaamku uga hadashay in wax la kaydsado iyo sida oo kale muhiimadda wax kaydsiga. sheekha toddobaadkan ee barnaamijku waa sheekh cabdinuur axmed oo ka mid ah culimada Puntland. wariye xasan haykal oo ka tirsan warbaahinta Daljir ayaa sheekha Garowe kula kulmay. waxa weeye shariicada islaamku way ka hadashaa. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka uu ka hadlay suuratu Yusuf markii Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wa salaam xabsiga laga shay. markii dambe Ilaahay quraankiisa kariimka ayuu Nabi Maxamed uga qisooday, quraankeena kariimka nooga qisooday oo ku yiraahdeen Nabi Allah Yusuf uu yiri 7 sano waa beeranaysaan, tazra'una 7 siniina daaban fama hasatum fadaruhu fi sunbilihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 shidadin ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yuqasu an-nas wa fihi ya'sirun. marka waxa weeye dadku inay maaragtay wax 7
7 sano baa wax beeranaysaan 7 sano wixii aad beerataan wax yar maan inta kale meesha uga tagaysaan wax yar markaa ka cuntaan ma inta kale meesha uga tagaysaan waxa imaan doonto 7 sano oo aad iyo aad u adag 7 sano baa wixii marka hore aad beerateen baa soo goosanaysaan marka waxaad meesha laga dareemayaa marka in dadku inay wax kaydsadaan ay banaan tahay risqa ilaahay xaqiisu jira laakiin waxa banaan inuu qofkiisu wax kaydsado waxana maanta uu cuni karo waxana bari uu u dhigto muhiimadda ay leedahay in wax la kaydsado iyo shariicada sawaadasha muhiimadda ay leedahay waa ujeedaa 7 sano abaara markay timid waxa 7 sano barwaaqada ahayd baa loo karsay macna waxa markaad kaysatay wax ku anfacaysa waqtiga ay maartay u baahan hadaan lacag dhigatid meel waxaan ku talinay saddex waxa u qaybiyaan waxooda qayb ay maartay wax waqtigaas ay isticmaalaan qayb ay markaa wax ku dalbadaan qayb ay meel dhigtaan sheekh cabdinuur axmed oo joogay garowe aad buu u mahadsan yahay haatan aan khabiirkii barnaamijka dib ugu laabto waa axmed macallin si uga jawaabo su'aalaha dhageystayaasha dadka su'aalaha qaba ee ina soo weydiiyeyna waxa ka mid ah cabdisalaan kajooje waxa uu joogaa galdogob waxa uu leeyahay waxaan weydiin lahaa khabiirka sidee qof dumar ah oo laga yaabo inaanay awalba wax hagaagsan ama wax badan haysan oo uu ganacsigeedu iska yar yahay ay wax u kaydsan kartaa cabdisalaan runtii aad buu mahadsan yahay qofka haweenka ah ee ganacsiga yar gacanta ku haysa aan wax badan ka soo saareen haday eegto barta ay ku nooshahay mar walba wax jirta cid ka sii liidata markay ogaato inay cid ka liidataana ay jirto cid ka sareysaana ay jirto qof wuxuu soo arkaya marka inuu meel dhex joogo marka qof wuxuu dib u qorsheynayaa waxa ku baxaya oo inta badan waxa ku soo gala iyo waxa ka baxa ee kharashaankaaga baxaya marka la kala jaro waxa ka soo hara ayuu naqaanaa decade-ka gala hadii marka ay eegto cidayada la midka ah ee sideeda u nool ay kharash ku baxayaan waxa ku baxaya iyo uu aad uga yareeteeda hadana ku nool fiican ku nool cidayada la mid ah waxay ka fikiri kartaa marka inay inta nolosheeda dib u celiso ay kayd samaysato waxaana cajiib ah oo runtii dhaqamada dhow ku jirta ma keenno qoro maaha haddaad muddo 2 sano 3 sanadood u sabirto sanadka afraad waxaad gaaraysaa horumar marka haddaad wax dhigato oo aad wax meel kaydsato iminka tusaalahaan haddaynu eegno haddaad dhegeysanaysa waraysigii xabanuur waxay tidhi hal mar baan hagbad galay waxaan markiiba miiskaygana waan camiray carruurtaydina waxbaan u qabtay suuli caqabadii ugu ahaayo in badan hortaagnaana waan dhistay marka ogow waxa iska jarto halka gaarsiiyay hadii marka qofku aanu u diyaar garoon wax iska jaro isagoo marka sameynaya afka waxa ku benchmarking isagoo marka hadba cidda uu noloshiisa ku sareynaya eeganaya uu ka gudulin qofku horumarka ma gaarayo aad baad mahadsantahay aad bay u mahadsan yihiin dhageystayaasha barnaamijku ka qaybgalkoodii ayaan dhageysanay toddobaadka dambe su'aalo ayay soo weydiin doonaan martida barnaamijka haddii ee baydmo waxaad dhageysanaysaan barnaamijka mawjadaha baraaruga oo BBC Media Action soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-dana waa aad ka dhageysanaysaan haatan waxaynu soo gaadhnay waqtigii aan wada dhageysan lahayn maadayskii talo iyo tacab waa kuwan jilayaashii oo maadays cusub inoola diyaara galabta walaalo soo dhawow maxaan kaa iibiyaa waan dhowahay maanta adeeg badan baan u baahanahay waa lagaa iibinayaa walaal wax kastoo aad u baahan tahay ee ii sheeg baradhada tamaandhada iyo basasha midiiba walaal 3 kiilo isi waayahay mi 3 kiilo soo maaha haye maxay kale liin dhanaan qaji iyo xawaashiyadaasoo dhan mi kiilo imis waayahay waxaan filayaa inay qajidu igu yar tahay bari suuqa ku baadhbaadhe dib ma lehe bal eeg waxa ay noqoto oo waxa kale oo 2 kiilo iga siisaa basal baar haddii aad hayso iyo weliba salad waan hayaa labadaba soo mi 2 kiilo maaha haa 2 kiilo iga dhig mid walba walaal macsuumad baad leedahay mise alla bari wadigan si weyn u adeegtay may waxaan deganahay xeradan barakaca hagbad yar oo dumar la galay ayaan qaatay kadibna waa adeegii reerka oo maris wada raacinayo wallahi waa fikrad fiican hagbadu waa farsamo wanaagsan oo lacagta ku kaydsan karto walaal anagu dad hayntoodu iska yar tahay baan nahay waxa ugu badan ee nacaawiya waa hagbadaha iyo waxa yar ee nabayno hagbadu walaal aniga waa halka ay soo gaarsiisay markaan ganacsigan bilaabay dhowr gacmood oo yar baan ka galay dabadeetana waa halka ay soo gaarsiisay caawisay waa run dumar badan oo barakaca wada deganahay waan ku kari waayay hagbada haddana baahi kama baxaan oo waxba isuma gaadhaan oo miyay waxba isku gaarayaan waxaaguba af iyo gacan bay noqonayaan ha ka yaabin inay wax isku gaadhaan imikana adduunyadii wadiga arkay ilaahay waxaynu haysanno haynoo barakeeyo aamiin weliba xisaabta waxaad ku darsataa inaad akoon furato oo lacagtaada yar ku kaydsato ma lacagta hagbada maya lacagtaada oo dhan wixii aanad baahi u qabin inaad iskaga ridda bangiga oo walaal muxuu faa'iido leeyahay bangigu dee walaala kayd baad yeelanaysaa cidna u baahan maysid ganacsigayguna wuxuu kor u kacay maalintan kayd yeeshay waa fikrad fiican sideen bangiga ku helayaa dadka barakacayaasha iska abaanu nahay bangi kasta uu kuu furayaa koontada marka adigu ka walwaline u tagun sax waa inaan koonto soo furtaa wax badan baan kaa faa'iiday waxa la yidhi wax ku siiya waad aragtaa laakiin wax ku sheega ma aragtid waan isku leenahay walaalo meel fiican baad imika maraysaa
aniguba intaan hagbad ka soo bilaabay ayuun baan koonto furtay maasha allah maantana uu adiga meherada camiran dhex fadhiya maasha allah walaal moolkan horey ma uga adeegatay maya walaal waa markii ugu horeysay ilaahay markii soo dhawow moolka aad arkaysa inta la eg gabadh isir la yiraahdaa leh oo iyaduna ganacsataa waana gudoomiyaha rugta ganacsiga ee magaaladeena toosan maasha allah walla dumar dadaalay baad tihiin annaguna waa inaanu idinku dayanaa waad mahadsan tahay markasta albaabkaygu idiin furan yahay soo dhawow isirna waan iskiin bari doonaa adiga mudan walaal waan rabaa inaad iskaaga barto oon xiriir dhow yeelano arrimaha barakacayaashana waan kala hadli lahaa dib ma laha markastood walaal diyaar tahay ii soo sheeg dee barasho wanaagsan caasho ayaa la yidhaaye wacanoo wanaagsan anigana walaal magacayga maryam baa la yidhaah waa ku jeediyey walaale balbac iigu rid adeega xisaabtuna waa imisa warya calow caliyow waar cabdi ii waran maxaad la qaylinaysaa ku helay warwarkaas ka baxo waxaan ku weydiiyey ma aniga iyo reerkayga inaad noo kala sheekayso ayuu camalkaaga noqdo waa reerkan aad maalin walba ka hadasho iyo waxaad sheegaysaa waa maxay waad garanaysaa waxa aan ka hadlaye warkan joojin mayside malaa waxaad doonaysaa inaanu isdillo waar de malaha waad soo waalanaysaa bal horta waxaan adigu haysid ii sheeg weliba maalaad sugaysaa inaan kuu sheego waxaad samaysay adiga og reesoo adigu wax igama tabanaysid bal sheego waxaan kugu sameeyey xaaskayga miyaad ila qabtaa maxaa sheekadeeda ku daba dhigay waa wixii rag isku dili jiray waar dilmada ay sheegaysaa maxayd ma nin baad ka xoog weyn tahay si degan ayaan kuu leeyahay waxaan kugu sameeyey ii sheeg maxaa ku haya maxaa kuu geeyey xaaskaygaad warka ugu qaaday weliba kaaga daranta waan ku weydiiyo waxaan ku idhi miyaad u tagtay soo imaad dafrin waar xaaskaaga lacag baan u doontee maxaa ku jaban haddaad lacag u doonatay maxaa ku geliyey dumarka aan la hadlo iyo hawlahayga waar de haygu waalan malaha dembi baad raadinaysaa waar ma anigaad ileeda haygu waalan oo warkayga ayaad biishataa waar bal horta dibiga istaag xaggeed igu soo gariraysaa caliyow wax badan ayaan gacantayda dib u hayay waxaan ka baqayaa haddaad reerkayga ka dhex bixi weydo inaad gacantayda ku baxdo waar waad xanuunsanaysaaye haddii ninaad ka xoog weyn tahay waan wada joognaa toosan waxba imika ha sii cararine haddii ilaahay nin ragga kaa dhigay bal war aad leedahay hay soo gaadho balkan eega igu waala aniga ma cirkaa jeex soo dumin soo dhawow mako waa rabadaane shaah iyo buntoona laysu shubi maayaa furka ka hore aad baad u mahadsan tahay sirey iska waran alxamdulilaah waannu nabad qabnaaye idinku iska warrama deegaankiinniina ka warran waxaan maanta kuugu imi inaan barakacyaashii warbixin kaa siiyo haye warbixin sideeya makoy meesha xaalad adag baa ka taagan oo haysata dumarkii barakacyaasha ganacsiyada yaryar ku haystay haye bal warkaysii isirey nolosha qoysaskaasi dumarkay ku tiirsan tahay oo isha dhaqaaley wax ka soo galaanba waa iyaga waa run oo dhammaan dumarka ganacsatada yaryar badankooda qoysaskaa ku tiirsane haye raggooduna shaqo la sheego sidaasa ma hayaan iminka oo wada murmaal bay isaga badan yihiin salaamaad haye karoonuhuna saamayn aad ballaadhan buu ku leeyahay oo dhaqaale iyo nololba aad buu hoos ugu dhigay haye warkoodu saaka ma wanaagsaneen rabadaantaa waxaa isugu biiray biyo nadiif oo aanay haysan saamun la'aan iyo xanuunkiiyo farabaas ku haya waaba sidaan kuugu imid isire inaan warkooda ku siiyo baloy baydh haye sidaa darteed khatar badan oo halisaa ka dhalan karta wacyigelin la'aan jirta awgeed haye dee warbixintaa inaan ku siiyo ayaan kuugu imi guddoomiye haye oo wacyigeliba miyaanay helin dee waa sidaase intaasaan kuugu imi guddoomiye alla khayr badan ha ku siiyo xogta waafigaeedii la wadaagtay waanan kaaga mahad celinayaa kuuguna hambalyaynayaa inaad ii soo koobtay xogtoodii mahadsanid guddoomiye sirey waa waajib saarnaa aad baan uga dharagsanaya baahayaaya xaalka aad ku sugan tihiin waanan ku baraarugsanahay waannu ognahay waana sababtaan kuugu imi waan idiin maqanahay waanan soo dadaalayaa idamka alla albaabkayguna wuu idiin furan yahay mar walba waakana baabuurkan waa idhibi saanle waa markisto waryaa siidow gaadhiga intaad soo ciladaysay baad leedahay saanle waaye saanle waaye waa bahlasiin maxaan ku dhihi lahay ma galabtoo keliya ciladani qabsatay maya maalmahan dhan waa laga soo dareemaya in suu halaabuu hayo markaa waad iskaga shaqaysanaysay soo maaha adoon hagaajin adna waa kugu shaqeynay mahoy walaashee gaadhigan maalmahan xitaa wax lacaga igama soo gelin maxaa dhacay siidow ma og tahay horaa waxaa loo yidhi baabuur qaboojini qabow abaay waa maxay waxaas baabuurkan garaashaan geeha waa la suubiyuu hayaa haddina maalinta kale sidiisi leewaasan yeelahayaan war horta maadaa waala mise aniga saad leedahay unuka dhan maca baabuurka inaan jini qabna u maleeha
sida wadaa waalan sawti gaarigan lacag ugu tala galay in lagu hagaajiyo markay cilad ku timaado aawe beesada adlay makiilno sidii karoon lagu ordaysa waayadan bal lacagta ka keenaysa gaariga aad bay u yaraysiiyo wal ogyahay abay waaban gadaya gaarigan jinkaad sheegaysa anaha kaa baxay haddii baabuurkan gadidkoo kale maa nagu soo gadaya mid kalena iibin maayee soo geerashan ku dambayn maayo haddii beesada deynta nagu maqan dhammaantoodaan helno baabuurkan waa ku samaysan karnaa halkay deyntu kaaga maqan tahay saaxiibtaa maran iyo dad kale aa jiraan oo beesa badan ay haystaan maxaad ku hadlaysaa ma gaaribaa kiradiisu deyn gashaa karoon fariskan wax leemana baruuhayoos ma karoonaha deyn ku baray waxaaba ugu daram saaxiibtaa maryan waxay ku dhehey suuqa karoona fariskan nagu dhadheeliye beesada iyo suunaqa beryaan ku sii haaya haye adiguna mar walba miyaad ka yeeshaa saas leebo baabuurka ijaarkiisa deen ku noqota abay dee inta imikay naga maqan waa imisa arsiidow galabtan furayaal badniga kuwii oo mininka iyo kuwii baabuurka leemaano safar ma u bixee mise waa ka soo laabat maxaa safar eene baabuurka ayaanta dhan garaashis ku jiraaye baabuurka kii Yasmiina koo kale ma igu ogeydnaan maxaa dhacay ma la suubin waay suubis waxaa ka horeyso in bees loo haayo ma hor runtaa waay maxaa jira baabuurka beesa meel ma u dhigin miyaade dadkii cabaan lama ka soo herinoohe cabaad see camal qofkii baabuurta alaab u soo qaadid oo kaa kiraysto igula haalusku dhahaaba beesada waxaan weligay maqlay ma ahin corona keeni alguma marsiyo hayo dadkii dhanbo annaka lee marmarsiyaha qabnee adigana ma kugu dareen hataa maalin ma ahan laba maalin ma ahan sitmaan asuga ii ka badan fiiri mid ma yeeshid kirada noocaan iska jooji baabuurka rakaab caadiya ka dhig qof ma markaa baabuur deyn ku raacoyo horta taas waab iyo maqneedbo laakiin baabuur maaba hadda hayaa ma halaabay baabuurka garaashas yaala abbayda Yasmiin waa gadaaba iska soo goosatibo gadaw ma ka gaartayba hadda walaashay maana waxaan kugu imid hawaaye inaa saaxiibtaa Yasmiin la hadashid maxaan dhahaa baabuurka gadina soo dhaaf isira iska waran waanu badannahay maante maasha Allah soo dhawaada oo waa dhantiin maante isiray mid kale oo madaxa oo aanu xogta ka raadsano ayaa jirta taa iska dulqaada wanaga kugu soo socono uune maryanay ma cidaan idinka ahayn baan meesha u joogaa waliba maanta qorshe weynaan ku wadnaa oon ku soo tashanay inaan nala eegtid hirgelintiisa waa war wanaagsan yaraysan maayo wixii igala gudbooni warka keena Yasmiinay ku horeeyo isirda ujeedada u guudmar wixii aan ka tagayna idinkaan idinka tagayay isirey waxaanu ka fikirnay inaan shirkad ganacsi samaysano haye waa fikrad aad u wanaagsan waxaan rabnaa inaan maalgashi dhul samaysano kalluunkana ka shaqeyno shirkadda inaan ku bahowno oo gacmaha isqabsano ayaanu soo go'aansanay taageeradaada iyo taladaadiiba waanu kaaga fadhinaa waa fikradan aad ugu bogay waana idinku tahniyadeynaya halka la taagan yahay waa in talaabo hore looga qaado waana idinku raacsanahay waan ogaa inaad fikirkaas soo dhaweyn doonto mahadsanid isirey isirkaalinta inoogu jirto waa sababtaynu ugu nimid sow maaha khayr allaha siiyo mar walba wax fiicanaan kala kulannaa isir waan idinka mahadnaqayaa wanaagga aad ii haysaan horta waxaan idiin sheegayaa halkan waan ka sii socdaa ha fogoo kalese waan leeyahay waan se idin caawinaya maasha allah wax lagu farxo waaye ilaahay muraadkaa kalena ha kula qabto tala iyo toosinba diyaar baan idin laahay horta waxaanu kaa filaynaa isirey inaad nagala taliso sidaan uga gudbi lahayn caqabadaha waa runo iyadoo aynu iskaashanayno sidii aynu uga gudbi lahayn baan taladeeda iyo taakulaynteediiba rabnaa tallaabada koowaad ee aan idiin tilmaamaya waa inaad dhammaan raacdaan shuruudahan diiwaangelinta shirkad cusub ee yaal rugta ganacsiga aad bay u mahadsan yihiin jilayaasha maadiiska taliya tacab toddobaadka dambe qaybo kale oo cusub ayay inoo hayaan haddii eebba idmo gunaanadkii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay haddii aan idinla wadaago qodobka barnaamijkani ku saabsan yahay toddobaadka soo aadan waa hablaha doonaya inay ganacsi samaystaan yay tahay inay dhiirigeliyaan dhegaystayaal qodobkan wixii su'aala aad u haysaan khabiirada soo weydiiya idinka oo nagula xidhiiraya bartaan facebooka ku leenahay BBC Media Action Somali oo aad mar kale barnaamijka halkaasi ka dhegaysan kartaan haddii kale whatsappka lambarkiisu yahay eber 257 eber 1939 waxa aad nagu weydiin kartaan su'aalihiina oo coda si aanu khabiirada ugu bandhigno
siday danta xaaskaayo barnaamijkii mawjadaha baraarugu dhegaystayaal toddobaadkan intaasi ha inoo joogo waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka Norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano NORAD iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta UNDP toddobaadka dambe haddii eebba idmo inta ka horreysa waa cabdilaahi jaamac iyo safiya cali yuusuf oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadeed xarumaha ganacsigooda xanaaniya dhiirigelin la xeeriyaba habboon isla sidoo kale anigoo cabdiraxmaan cali dhimbiila iyo soo saaraha barnaamijka maxamed cabdiraxmaan iyo farsameeyaha mubaarak cabdalla waxaanu annana idinku dhaafeynaa isla intaa in leeg ramadaan wanaagsan iyo maalin wanaagsan tan iyo intaanu dib u kulmayno